Assalaamu calaykum walaalay qaaliga ah waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin waa walaashiin Hinda kanalka igala socotiin waa Simple Hinda maanta waxaan idin la wadaagi rabaa casriyo yar oo fudud oo koob laba saddex ah haddana waxaan isla arkaynaa waxyaabihii aan ka sameeyay waxa u horeeya u baahanahayna waxa waaye burkaasitoodii oo diyaarka ah waxaa la dhahaa puff pastry ani horena waan usoo geliyay anigoo isticmaalayo malaay iyo qudaar dhexda laga gelinayo isaga iyo waxaa kaloo u baahanahay cananaas aan soo qalajiyay iyo waxaa kaloo u baahanahay mirahaas yaryarka ah oo la dhaho cherry dhowr xabaad ka soo qaatay iyo inta waxaa yaalo 2 qaando oo sokor ah sokorta cad daartu isticmaali kartaa intana waxaan ku haystaa 3 qaando oo batar ah aan si yar u soo jarjaray haddana waxaan isla arkaynaa qaabkii aan u diyaariyay intaan foornada gelin waa alaab foornada lagu sameynayo puff pastry waa hadda ama burkii ama cajiinkii diyaarka ahay xaanshadaan wataa marka ani xaanshada kama fiiqay saxanka ayadaasan kor saaranay inta xaansho kale saxanka saari lahay waaba loogu talagalay hawl fududeys marka laab yar oo ku jiray aan toosinaa maadaama cabaar la laabnay kadib waxaan u guda galaynaa waxyaabihii aan korka ka saari lahay iyo qaabkii aan u kala hormariyay waxa u horeeyo aan ku bilaabayna waxa waaye cananaaskii aan soo qalajiyay marka qayb kastaba cananaaska qayb uu la eg yahay aan ku aadinaya 6 xabo hadda ay saarneed saxanka 6daas xabo way la eg tahay cajiinka haddana waxaan isla arkaynaa alaabihii kale oo ii soo haray sidii aan u soo saaray sida u jeedeen buu ku soo dhameeyay sokortii iyo subagii mirihii yaryarayna waxaan dhexda ka geliyay cananaaska sokortii iyo subagana waa isla ekeeyaan meelna ku badanin meelna ku yaraanin camal waa u wada qaybiyay saxanka dhan hadda marka waxaan u qaadayaa foornadana hore u sii daaray inta aan diyaarinayay 15 daqiiqo 180 joogtaa iyo kor iyo hoos waaye ama fan oven 20 daqiiqan ku yaraysaa kaliya hadda waa kanaan 20 daqiiqo kadib wuu soo bislaaday maasha Allah si guduudan oo qurxoon ku soo baxay kadib waan jarjarayaa si isla eg mindi ama waxa ku jari kartaa birta wax lagu jarjaro burka iyo waxaas
haddana waa kanaha markii aan soo jarjaray bur cananaaskii. Bur cananaas laan dhihi karaa, doolsho cananaas aan qiina markii hore. Hadda laakiin bur cananaas fudud waaye oo shaqo badan ka rabin. haddii aad burka waa samaysan kartaa, laakiin qofka heli karta ani waxaan kula tali lahaa burkan diyaarka ah. haddana waxaan isla arkaynaa markii aan saxanka soo saaro. waa kana haddana markii aan saxanka soo saaray, ani geeska waxaan ka saari rabaa kareemkan diyaarka ah. haddii aad rabtid jalaato ama ice cream geeska laga saari karaa, ama sidiisaaba lagu cuni karaa, waxba ma diidaayo. waa casriyo fudud oo waxaan ku dhahaa maasha Allah, ciyaalkan aad iyo aad uga helayaan galaas caano qandac haddii lagu siiyo. haddii ay tahay marka ugu horeysa soo booqanaysa kanaalkayga, waa ku mahadsantahay soo booqashadaada. fadlan subscribe ii saar, haddii aa hore ula joogtayna like iyo share iyo comment. haddana kareemka waxaan ku sharaxayaa mirihii yaryaraayo hadaatay isla arkaynay oo jeeriga la dhaho, oo cananaaska dhexdaan kasoo geliyey. marka waa kaasaa sidaan quruxda badan noogu soo baxay. haddii ay idin tilmaamo siduu kusoo baxay dhinaca adeega ama jileecana, labadaba ma jiro, waa dhexdhexaad. maxaa yeelay burka asagaaba jilcan, korka marka waxaan ka saaray subag iyo sokor. subagga iyo sokorta waxay u yeelayaan caramel camal. marka wax yaroo waxa waaye maasha Allah qofkii dhadhamsan ka sheekeyn karto. marka la soo tijaabiyo. inta aan haysanin ilaaha siiyo, inta haysatan ilaaha u siyaadiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.